بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتك وحرنتنا يوتيوبك أقوان كرورس أوفيشيال وحادين لي هبين ونكسن إن شاء الله وحين نسعدي إن عشرك إن مادة حسابته فصل كستيدات كارهان وحن كسوق ذا جرني إن ليليدا بوق وقرأي إن كشقينه ونفائدين أرض الصومالية مركز جوجان إن هذا ما عاو حن قادين إن شاء الله إن جبتر كلابات in leeligiisa koowaad oo ku qoran yahay page-ka 19 in leeligaas ayaan qaadan doonaa insha Allah taala in chapter-ka labaad leeligiisa koowaad su'aasha koowaadna waxaan la weydiiyay u tibaax tira ahaan jibaarada soo socda jibaaradan ayaa waxaan ka dhigi doonaa tira ahaan haddii aan fuudeyno su'aashan koowaad oo ah waxaan la weydiiyay 2 ku jibaaran 6 laba ku jibaaran 6 waxay u taagan tahay lambar labadan hoose oo salka ah in la isku dhuftay 6 mar sababtoo ah qaybtan kore waxaa loo yaqaanaa muujiye lambar 6dan wuxuu noo tilmaamayaa muujiyaha inta jeer ee la isku dhuftay lambarkan hoose marka haddii aan fuudeyno marka waxay noqonaysaa tiradan hoose oo lambar labada ah ayaa waxaan furfurayaa ilaa ay 6 mar waxay noqonaysaa 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2 1 2 3 4 lagu dhuftay 2 1 2 3 4 5 lagu dhuftay 2 equal waxay leegtahay haddii tiradan la isku dhufto waxaa soo baxayo 64 64na waa tirada caadiga ah ee la weydiiyay inaan ka dhigo jibaarkani tira caadi ah tirada caadigan waxay noqotay 64 ayay noqotay halkaas waxaan ka gudbeynaa su'aasha qaybteeda koowaad waxaan gudgalaynaa qaybta labaad waxaan la weydiiyay qaybta labaad waxaan la weydiiyay 9 ku jibaaran 3 inaan fuudeyno 9 ku jibaaran 3 waxaa loola jeedaa muujiyahan kore wuxuu noo tusinayaa inta jeer ee la isku dhuftay tiradan hoose waxaa la isku dhuftay 3 mar waxaa leedahay 9 lagu dhuftay 9 lagu dhuftay 9 equal waxay leegtahay marka waxaan sameynayaa 9 ku dhuf waa 81 waxaan ku dhufanayaa 9 kadib waxaa soo baxayo 729 oo ah 9 ku jibaaran 3 marka loo bedelo tiro caadi ah waxay noqonaysaa 729 waxaan gudbayaa su'aasha qaybta kale ee saddexaad qaybta saddexaad waxaan la weydiiyay 11 ku jibaaran 2 equal waxay leegtahay 11 ku jibaaran 2 ayaa waxaa la rabaa in laga dhigo tiro caadi ah qaabkee loogu dhigayaa tiro caadi ah 11 kan muujiyihiisu waa 2 muujiyahan waxaa loola jeedaa inta mar ee la isku dhuftay tiradan hoose waxaa la isku dhuftay 2 mar waxaa leedahay 11 lagu dhuftay 11 equal waxay leegtahay 11 ku dhufa 11 waxaa soo baxayo 121 marka loo bedelay tiro ahaanta waxay soo baxday 121 waxaan gudbayaa su'aasha afraad su'aasha afraad waxaan la weydiiyay 5 ku jibaaran 4 5 ku jibaaran 4 ayaa waxaan ka dhigaynaa tiro ahaan ayaan u bedelaynaa marka qaybtan kor waa muujiyihii waxaan isku dhufan doonaa 4 mar tiradan hoose waxay noqonaysaa 5 lagu dhuftay 5 lagu dhuftay 5 lagu dhuftay 5 equal waxay leegtahay 5 ku dhufo waxaa soo baxayo 25 25 ayaa waxaan ku dhufanayaa 5 waxaa soo baxaya 125 125 waxaan ku dhufanayaa 5 waxaa soo baxaysa 625 ugu dambeynta waxaa soo baxaysa 625 waxaan filaynaa fahanteen qaybta koowaad taas oo ahayd u tibaax tira ahaan jibaarada soo socda waxaan gudbaynaa qaybta labaad waxaan la weydiiyay waxay tahay u tibaax jibaar ahaan tirooyinka hoose waxaan la siiyay tirooyinkan hoose waxaan ka dhigi doonaa jibaar ahaan qaabkee u dhigi doonaa hadda aan arkayna insha Allah su'aasha koowaad waxaan la weydiiyay maadaama laga dhigayo jibaar ahaan su'aasha koowaad waxaan haysanaa 6 lagu dhuftay 6 lagu dhuftay 6 waa 4 mar oo la isku dhuftay 6 lagu dhuftay 6 equal waxay leegtahay 6 lagu dhuftay 6 lagu dhuftay 6 lagu dhuftay 6 waxaan isku dhufanaynaa 4 mar marka jibaar laga dhigayo marka waxaan sameynaynaa tirooyinkan hoose oo isku midka ah waxaan ka soo qaadanayaa 6 soo qaado kadibna meeqa mar aan isku dhuftay waxaan isku dhuftay 4 mar waxaan ku jibaarayaa 4 waxaan u bedelay
jibaar ahaan tirooyinkii had safnaa. waxaan u gudbiyaa qaybta labaad. waxaan haystaa qaybta labaad ta lagu dhuftay ta ku dhufo hal taa ka soo qaado kadib waxay noqonaysaa meeqa mar aan isku dhuftay waxaan isku dhuftay 2 mar. taasna waxay noqotay qaybta jibaarka. waxaan gudbiyaa su-aasha kale oo saddexaad. su-aasha saddexaad waxaa lii weydiiyey ba lagu dhuftay waa 4 ba waaye soo qaado. waxaa leedahay ba lagu dhuftay ba equal waxay leegtahay tiradan hoose waa isku mid hal ka soo qaado 4 ba waaye 4na ku jibaar maadaama 4 mar la isku dhuftay. su-aasha afraad sidoo kale waxaan haystaa 5 lagu dhuftay 5 soo qaado waa 5 lagu dhuftay 5 oo lagu dhuftay haddana waxaan ku qoran oo raacsan 7 lagu dhuftay 7 equal waxay leegtahay 5ta meeqa mar aan isku dhuftay 5ta waxaan isku dhuftay 2 mar oo lagu dhuftaa leedahay intana meeqaan haystaa 7 oo la isku dhuftay 3 mar. waxay noqotay 5 ku jibaaran 2 oo lagu dhuftay 7 ku jibaaran 3. waxaan gudbiyaa su-aasha kale ee shanaad. su-aasha shanaad waxaan haysanaa su-aasha shanaad waxaa lii weydiiyey 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay a lagu dhuftay a. waxaa leedahay 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay a lagu dhuftay a equal waxay leegtahay 2dan hal ka soo qaado meeqa mar aan isku dhuftay 2 ku jibaar oo lagu dhuftay aadan hal ka soo qaado meeqaan isku dhuftay 2 mar. taasna waxay noqotay jawaabteeda. waxaan gudbiyaa su-aasha kale. waxaan haysanaa a lagu dhuftay waa 4 a soo qaado. su-aasha lixaad waa a lagu dhuftay oo lagu dhuftay waxaa kaloo raacsan ca oo ayadan 4 mar ah soo qaado. ca lagu dhuftay waxaa sii raacsan da oo hal mar ayadana ah lagu dhuftay da equal waxay leegtahay marka maadaama aada la isku dhuftay 4 mar waxaa sameynaysaa leedahay a lagu dhuftay waa a ku jibaaran 4 oo lagu dhuftay caadana waxaa haystaa a ku jibaaran 4 oo lagu dhuftay da-dana waa hal mar oo keliya soo qaado jibaarkeedu wuu qarsan yahay hal ayaa u qarsan marka hal dusha lama saarto marka da-dana waxaa u qarsan hal oo keliya. intaasna waxaan filaynaa fahanteen marka tirooyinka caadiga ah loo bedelayo jibaar ahaan. waxaan filayaa inaa fahanteen labadan ciwaan oo kala ahaa u tibaax tira ahaan jibaarada soo socda iyo u tibaax jibaaro tiradan hoose. insha allah arday walba ha isku dayo inuu ka soo shaqeeyo insha allah layligan ama tijaabadan yar. qaybta koowaad waxay tahay u tibaax tiro ahaan. u tibaax waxaan usoo qaato ooda tiro ahaan. waxaan ku siiyey su-aasha koowaad 7 ku jibaaran 3. tan labaad waxaan ku siiyey 4 ku jibaaran 5. tan saddexaadna waxaan ku siiyey ba ku jibaaran 3 oo lagu dhuftay ya ku jibaaran 4. tan afraadna waxaan ku siiyey ama ay tahay 2 ku jibaaran 4. isku day inaad keeni kartid ahaanteeda jibaaradan kore wax walba waa isku day insha allah. tan kalena waxay tahay u tibaax jibaaro. tan waxaa laga dhigaa tiro tan jibaaro ka dhig. waxaan ku siiyey tiradan jibaarkeeda keen waa 3 qayb waaye 1 2 3 saddexdan qaybna insha allah jibaarkeedana keeni karta isku day haddii aad tahay arday sideedaad ah. isku dayga wuxuu ka fiican yahay isku day la'aanta marka arday walba ha isku dayo inuu keeni karo insha allah. qaybta commentigana jawaabta kusoo reeb ama whatsappka igu soo dir jawaabta insha allahu tacaala adoo ciwaanka soo raacinayo ama caadi u soo shaqaynayo. halkaasaan ku keenayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.